toddobaadkaana barnaamijka waxaan ku eegaynaa taariikhda jilaaga caanka ah ee loo yaqaan Mr Bean. Mr Bean magaciisa runta ah waa Rowan Atkinson, waxaana loo yaqaan Mr Bean oo ah magaca filim aad u qosol badan uu sameeyay. Isla filimkaas ayaana magaca Mr Bean loogu bixiyay, hase yeeshee magaciisa dhabta ah waa Rowan Atkinson. Mr Bean wuxuu dhashay 6 January 1955, da'diisuna hadda waa 62 jir, waana jilaa caan ah oo u dhashay Ingiriiska, isla markaasna caan ku ah qosolka qaybaha sameynta ficilada. Mr Bean waxaa dhalay Eric Atkinson oo ahaa beeraley iyo shakhsi maamulo sare ka ah kambani soo saara dalagga. Mr Bean waxaa la dhashay 4 wiil, asaga ayaana u yar familkooda, wuxuuna ku soo barbaaray magaalada loo yaqaan Anglican, isla markaasna waxbarashada heerka sare digriga jaamacadda wuxuu ka qaatay engineering. Rowan Atkinson oo loo yaqaan Mr Bean wuxuu ahaan jiray nin aad caan ugu ah soo bandhigida showyada ka baxa mid ka mid ah TV-yada cariga Ingiriiska. Mr Bean filimkii ugu horeeyay uu sameeyay wuxuu ka ahaa supporting actor ama caawiyaha atooraha. filim noqday flop kaasoo waday atooraha loo yaqaan James Bond oo ahaa Never Again sanadkii 1983. waxaa xigay filim magaciisu ahaa For Wedding and Funeral. waa filim qosol badan, waxaana filimkaas u dhiibay directorka Mike Nowell. isla sanadka 1984 wuxuu ka qayb qaatay filim loogu magac daray The Lion King, boqorka libaaxa. filimkaas waxaa looga hadlayay boqortooyada Ingiriiska iyo qaaradda Afrika. intaas kadib wuxuu sameeyay filim musalsal ah oo ka bixi jiray BBC-da 1995 ilaa 1996. filimkaas magaciisa wuxuu ahaa The Thin Blue Line. taariikhda waxyaabaha ugu yaabka badan ee Mr Bean waxaa ka mid ah 2001 mar uu safar ku soo aaday Kenya ayaa duuliyihii diyaaradda waday suuxay, kadibna waxaa la wareegay maamulka diyaaradda. jilaaga caanka Mr Bean ilaa uu ka soo kaco bayloodkii suuxsanaa, kadibna si nabad ah ayay diyaaradda uga soo degtay garoonka diyaaradaha Wilson Airport ee magaalada Nairobi. Rowan Atkinson waa Mr Bean ninka loo yaqaanay. wuxuu guursaday gabar make-up-ka u hagaajin jirtay shaqaalaha BBC-da, waxaana isbarteen 1980-meeyadii, wuxuuna guursaday 10 sano kadib. gabadha magaceeda waxaa la oran jiray Sunandra Satri, waxayna u dhashay 2 caruur ah kuwaasoo la kala oran jiray Ben iyo Lily. intaas ayaan ku hakinayaa taariikhda gooban ee ninka loo yaqaan Mr Bean. aad ayaa uga mahadsantihiin. fikirkiina talo wixii ku saabsan barnaamijkan waxaa noogu reebi kartaan commentiga. annagoo isku duuban waxaan idin leenahay isma dhaafno. kulanti wacan oo wanaagsan mar kale.